diaspora iyo daljoog way iskaabaan taariikh ahaan bulshada Soomaaliyeed waxay u kala qaybsanaan jirtay miyi iyo magaalo koonfur iyo waqooyi beeraley iyo xoolo dhaqato iyo wixii la mid ah laakiin bilowgii 2011 waxaa si xowli ah u soo kordhay kala qaybsanaan ku salaysan diaspora iyo daljoog ama qurba joog iyo qorax iyo qaran joog taasna wuxuu abuuray legdan iyo xifaaltan cusub loona baahan yahay in loo kala garnaqo si loo abuuro dadaal iyo aqli wadareed ee u horseeda qaran qurux badan hadduu alla yiraahdo runtii dalalka ka soo kabsaday dagaalada dhaqaalahoodana aadka u kobcay sida Vietnam waxaa sabab looga dhigaa dadaal wadareed oo qalbi furan oo u dhexmaray dawladda ganacsatada bangiyada iyo bulshada diasporada iyo daljooga ah iyo hay'adaha waxbarashada anagana ka Soomaali ahaan waxaan baahi weyn u qabnaa in malaxumada iyo mala'awaalka uu xifaaltankan dhaliyay laga meero maskaxda bulshada Soomaaliyeed hadduu alla yiraahdo run ahaantii xirfadaha diasporada iyo daljooga way iskaabaan tusaale ahaan qurba joogta hal abuurka ganacsiga geeya dalka waxay markoodii hore ku eegaan indho reer galbeed ah fikradahooduna wuxuu u baahan yahay in la Soomaaliyeeyo taana waxaa ka kaabaya bulshada dalka joogay wuxuu ogaal u leh suuqa cusub iyo macaamiisha siday u dhaqmaan haddaad fiiriso qurba joogta ku khasaaray ganacsigoodii waa kuwa aan hal abuurkoodii ganacsiga aan Soomaaliyeynin sidoo kalena waxaa yidhi diila mudan oo baryahan soo badanaya mataaneynta xirfadleyda diasporada iyo kuwa dalka joogay ee ka wada shaqeeya xafiisyada dawladda iyo shirkadaha private-ka taasoo dhalinaysa aqoon isweydaarsi iskaashi is-aamin iyo is-aqbalid hadduu alla yiraahdo walaalayaal dalkeena waa nagu wada filan yahay aan ka wada shaqeyno sidaan dalkeena uga dhigi lahayn mid xanan kara dadkiisa oo dhan ha qabtiri karana baahidooda insha Allah ta'ala Soomaalida waxay tiraahdaa shinida markay isqabataa malabkeeda la helaa bulshada Soomaaliyeed markay isqabtaan ayaa malabkeeda la helaa